بشري لجحلايا أو لجحلايا نبدون كايا ريبرا وعدي mar kale daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkaygii ahaa xuska sanad guurada koowaad ee telefishinka qaranka Soomaaliya oo aan ugu qabanay caawa magaalada Toronto dad aad u fara badan oo kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ay nala joogaan ayna stuudiyaha mid noola soo fareysan doonaan haatana waxaana la jooga nin dhalinyaro ah oo runtii ka tirsan kooxda Shego Band isla markaana runtii ah dadka aadka u firfircoon ee magaalada Toronto محيدين محمد محيدين مركو رقصوا لو تلفزيون قرن الصومالية ما سنة تسميه محيدين قد ما سنتين محيدين تلفزيون كان اس ان تي في هل سنة جرسدي adiga maxaad leedahay television kani faa'iidada uu dadkeena qurba jooga u leeyahay ama message ama fariinta ay ka gudbin karaan adiga maxaad leedahay wallahi television oo Soomaaliyeed way oo qaranka ah marka sidii oo dadka iga horeeyeen ay sheegeen maxaa la dhahaa message-ka muhiimadda waxa waaye in dadka wax la gaarsiiyo wixiina waa haysiin marka waxa waaye wixiina ku dadaashiin barnaamijka programyaasha in la badiyo oo sidii community-yaasha involve lagu sameeyo caruurta iyo wixii oo wadankeena oo maxaa la u baahan yihiin naga ogaadaan dadkii oo khudbada joogaan iyo anankana wixii oo dhinacaas ka jirana ogaano laakiin muxuudiin telefishinka shayga ugu yar hadii la dhaho fariinta ugu yar oo looga faa'iideysan karo hadii la dhaho dadkeena qurba jooga ah af Soomaaliga weeyaan dad fara badan baa caruurta inta ku dhalatay dadkii waayeelka ahaa runtii maaweelo u baahan dalkii inay ku xirmaan marka taa laftigeeda xaqii af Soomaaliga xataa qayb weyn uu ka qaadanaya Soomaali sax muxuudiin adiga nin dhalinyaro tahay magaalada Toronto muddo dheer baad degan tahay فنان باتهاي هولا كله community كان واقبتها بل هدي أنا حاجة فنك كوسون نقون أديك واحد كوجرتها كوح لي رادو Shego Band هاي مركا كوح دي ولي واجرتها سوما كوح دي واجرتها كوح دا مركي هو روحان نقول مقالة معمول باكوسون قش مانجر بعد وهيد حوجا كدبنا ستيج كاسون موقت أديك صح مركا معمول كي يفنكي هرات كاسون قش محدين محاس بدلينا waxay masbedelin hooshii labadii waa wadnay dhinaca managementigeena oo maxaa la dhahaa kooxdiina waa ahay waa u baahnay managementiga nin fanaan waa ahay laakiin dhinaca oo managementiga u batay gadaalna waxa waaye fankigan ku soo biiray heesaha idinka aad qaadaan hadda waxaa nala fadhiday dalays ayaa nala fadhiday macnaha heesii fanaaniintii hore miyaa dadka ugu celcelisaan mise kuwa cusub u sameysaan waxay ku xiran tahay sidii oo hadii oo xaflad aan sameynayno oo meel xaflad jiro marka xafladaasi waxa waa heesihii hore iyo cusub waa isku darnaa marka si oo dadka u jeclaadaan heesihii hore ay jecel yihiin ay maqlaan music dib habeen fiican oo sidii Shego Band lagu ogyahay muusikadii oo fiicnay aan u sameynaa oo dadka ku ciyaaraan oo caanka ah marka waa muusikadii waxaan u maleynaa hadda dalays noo sheegaysay oo xoogaa qayladeedu ay badneed sida sheegtay Maxamed waxa waaye qaylida waxa keenay North American joogna systemkii waa isbedelay musicadii computer la isticmaala waxyaalo badan sidii hore oo live ka loo tumi jiray energy badan u baahan systemkii yaa kor u kacay marka saas awgeeda jugjugta oo zaid badnaa fanka runtii aad u fara badan yahay laakiin fanaaniinta gobolada waa bari oo kaleeto ayagoo heesa jacayl qaadi kara ayagoo heesa riwaayada martukara ku timaada sameyn kara ayay haddana waxay u bateen in ay dadku heesa wadaniya u soo jeediyaan heeso dadkii iyo dadkii dawladda isku xiraya marka idinka Shego Band heesaha kale ama codka gaaban ama codka dheer kuwii wadaniga ahaa idinku ma haysaan hees wadani waa heesnaa sidii oo haddaad waa xasuusan tahay waagii oo Red Cross-ka oo Soomaali wadanka Soomaali wax loo aruurin jiray waagaas kooga back in 1993 gaan jeclahay 92ga heesaha wadaniga oo stage-kan ku heesnay oo Red Cross-ka ilaa hadda فيديوها واقرتها لكن حتى واحد أسمع مجلس دينك وقتها حاضر كهس ودني أو عن سمينا هذا مجلس لكن وكل ترجرنا marka maxaad ku haystaan heesta markaad gudbinaysan suugaanta maxay ku qoran tahay Soomaaliga caadiga ah mise lahjad kale ku qoran tahay waxa way afka reer xamar af Soomaaliga caadiga iyo af Baraawn oo ku haysnaa
khaas ahaan aniga heesahayga oo mid oo aad oo hadda adduunka dhan oo loo yaqaano bayley bakayloo hirig waa gartay laakiin waa ku weydiinaynaa xoogaa laba erey oo ka mid a laakiin heesaha aad ku qaadaan baraawaha runtii dad suugaanta ay aad hodan ugu tahay ayaa tihiin laakiin dadkuna runtii markaad fiiriso iyadoo Soomaaliya markii la joogo waxaa la dhageysan jiray heesa carabiya heesa Englisha laakiin mar walba qofka waxa weeyaan toonka iyo sida asaguna miraha fahmayna haddana wuxuu ka heli karaa sida music marka loo tumayo marka heesaha baraawa qaar kamid ah ama runtii beat kamid ah adoon horta hore aadan sidii hees aad u qaadin adoo ereyada maaragtay bal noo akhrin kara hees kamid ah bogaas waxa waay hadda sidii hadda aan ku sheegay heeska oo sidii dunida dhan loo ogyahay oo la jeclayaa oo aad loo jeclayaa waxa waay heeska Daada Xamuuda marka waxa waay tazajisa suura itako ina mere macna si fiican u ciyaar jirkaagana si fiican macnaha adoonan tarjumin aan ku tarjumin oo hadal erey kaliya ku sheegaa sabaa laakiin adoonan bal waa noo tarjumaysaa runtii tarjumaan uma baahna runtii afka baraawaha waxa weeyaan waxa uu kamid yahay afafka ugu qanisan ee Soomaaliya dad aad u fara badan runtii ay ku hadlaan laakiin intaadan tarjumin waa ku weydiinaynaa waa naga hor dhacday wax yar laakiin bal horta beedka sidii u qoran yahay u akhriba tazajisa sura itako ina mere nakuru yakubli rangara isishere ishungi taaraza wabjana wanarere marka samay waxaan u malanayaa waa dhaaranaysaa u malanaya ma dhaar maaha waxa waay waxaan la hadlooyaa oo qofka oo meesha oo heeska dhageysanayo oo ku ciyaarayo marka haddaan ku turjumaan waxa tazajisa suura itako ina mere macna si fiican u ciyaar ee jirkaaga si fiican u toosi baa lagu jeedaa camal nakuru yakubi rangara isisheere ee lugtaada midigna iska ilaala taraarixin ishungi taaraza ee timahana saas yeel wabjana dhalinyarada si fiican ku qancaan akula hees jecel oo hees marka anigana macnaha aan ku heeso kistaas way bal hadda taas beedkaas marka qaadi karayso sidoo yahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan saan beedkan ay tumay tazajisa sura itako ina mere nakuru yakubli rangara isishere nakuru yakubli rangara isishere ishungi taraza wabjana wanarere baile bakailo hirig arbaile bakailo hirig 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 hiririk rik hiririk rik hirig thank you Muxudiin Maxamed Muxudiin caawa runtii waxa uu nagala qayb galaya sanad guuradii koowaad ee telefishinka qaranka Soomaaliya runtii aad baad ugu mahadsan tahay suugaanta iyo warbixinta noo soo gudbisay mar kale aad u mahadsan tahay samada mahadsan tahay waxaan jeclaan lahay message-keena u diro Soomaalida meel kasta ay joogaan fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed sidii oo macnaha wanaaga إن شاء الله وحن عن رجينا أما عدسنا إن لس فهمه لس ولا لسدو وحي هور لس كعفيو دبكي هور معنا هدي عفس جيرين دبكي هور ماشي تاشا مرك هلس عفيو نا هلس حل هلا بدر ناخذه إن شاء الله نا سومالي هنولاتو